gudoomiyaha degmada Galdogob Xasan Faarax Maxamed Ayaxle ayaa xarka ka jaray maadada farsamada gacanta iyo farshaxanka oo lagu soo kordhiyay maadooyinka wax laga barto ee dugsiga Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan dugsigan Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo kamid ah dugsiyadii hore uga jiray degmada Galdogob waxa uu maadooyinkiisa waxbarashada ku soo biiriyay maado cusub taas oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka la keeni waayay waxbarashada maadiga ah maamulaha dugsiga Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan ee degmada Galdogob Faadimo Saciid Cali ayaa waxa ay ka warantay ardayda wax ka barata dugsiga iyo xaaladda uu iminka ku sugan yahay iskuulkan waxa la yiraahdaa iskuulka Axmed Xaaji Cabdiraxmaan ayaa la yiraahdaa iskuulka waxa la aasaasay muxuu ahaa kowdii bishii 9aad 2014 ayaa la aasaasay waxa lagu aasaasay dalabkii xaafadda laga qaaday oo ay soo jeediyeen hooyooyinka qaaliga ah ay codsadeen baahida ay u qabaan iskuulkan xaafadda sayidka ay u qabtay iskuulkaas sida ayaanu ku asabti gareynay oo aanu dalabkoodii qoray gudiga iskuulka iyo muxuu ahaa hooyooyinka iyo dhammaan ayadoo muxuu ahaa laga wada tashaday ayaa muxuu ahaa dalabkii la qoray maanta ka hor degmada Galdogob kama jirin dugsi kan oo kaleeta ah oo si wada jir ah wax looga barto maadooyinka culuumta maadiga ah farsamada gacanta iyo farshaxanka haddaba sidee bay u aragtaa wasaaradda waxbarashada ee Puntland waa kan agaasimaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Galdogob Dr. Cabdirasaaq Garweyne oo sharaxaad ka bixinaya suugo inaanta waxay loo hilib buuran aan soo gadno oo si fiican u karino oo baan jecelnahay la taa dumarka laakiin waxa jira waa qaali waxa jira marka cunno kaaga jaban oo wixii laga helay hilibka laga helay oo hadaad isku dardadho kaba protein badan hilibkaad ku ordaysay aqoon bay rabtaa oo waxyaabaha loo furo dugsiyada domesticada loo furo run ahaan waxa weeye waa wax qabad la soo dhaweeyo oo aan ku koobnayn dugsigan kaliya la rabo deegaanka inuu ka wada faa'iido Sakariya Cabdiraxmaan Salaad oo ah xildhibaan kamid ah golaha deegaanka ee degmada Galdogob waa muhandiskii dugsiga haddaba maxay tahay ujeedada uu ka lahaa inuu gabi ahaanba degmada ka hirgeliyo dugsiga farsamada gacanta ee Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan salaanka bacdi dugsigan horta waa dugsiga farsamada gacanta waxaa la yiraahdaa magaciisa dugsiga farsamada gacanta Galdogob ama Galdogob Vocational Training waa dugsi lagu baranayo xirfadaha gacanta sida harqaamada domesticada mechanical computerada baahida loo furay waxa weeye hadaan ka sheekeeyo horta waxbarashada asaasiga ah ma sha Allah aad baan u fiicanahay waxbarashada gacanta halkan kama jirin Galdogob hadda ka hor sabab lagu furana waxa weeye dadka waxbarashada ama ka waaweynaaday ama ka tagay ama shaqada haysta oo raba inay shaqaystaan inay inta dugsigan dhigtaan dabadeed 6 bilood markay dhigtaan shahaado inta la siiyo Iman Maxamed Gaani Puntland TV Galdogob